dagaaladii ugu waaweynaa saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahdo ay ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay Persia dowladdii Iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa Baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah is hortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطا قال هذا كلنا واحد هجامني إن الرستم لا يرادو جانا ندودي وويناي لقدم بيه كامدة مركان الرستم حر بابا اللي ما كان منتل يستدي يفكر يعني إنه وجاده وسعد ويديستي إنه الصادره عد وذا هذا البلو نحمره نبى الله دري وسوء عليه متكلا بلي صادر والله صدح نبى كل بمدو تجي صدح الصحابي هي كل بمدو تجي مثلا مت كم يدون هذين سوقاتنا ربعي بن عامر با كمده ninkan wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda faras yaro gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray nin ay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha ربيع بن عامر وفرس يرو قابن وطا soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaacay waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ii yeedhay anigu maan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aala baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay ma abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay سحاري وقتماده وحوق جوابي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سواب بحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سنة إلهي يقول إن يدتكو الضوامون نقضان ودتكو حرية هلان بانو صعنا بولي عبادة إلهي قاركو نقض وحنو كلاو صعنا بولي إنا ندتك دوني دا عريري قادة كسار رب اللي عيدا وصاره الضوان كان كاربتية دا عصر لكتايا عرشي قوين كفر ديا أيو حكولة عريري كاساريا عريري قوة قلبي كان دونكو قيمة ولا مفر ديا وين كاربتيدن iyo waxaan ninkan ugu fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma sameynayso waxaan kala fiican cadaaladda iyo maartay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigana adduunman ka bixinayaa waxaan ku saarayaa maxay balaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kala u socdaa buu yiri diimaha dulmigooda inaan ka kaxayno islaamka cadaaladiisa ku saaro yani mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan ninka xoolo badan oo ka birbirka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiin yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay xataa haddii sida kale oo dhan laydinka xoog bato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin war ha liidanina baa la yidhi ha murugoonina idinka koreeya haddii iimaanu jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya salawaad adaynu tilmaamno oo saxaabadan reer Maka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam rabbiyay say u muuqdeena
markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale oo 10 al-mubashiriin ah hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galaynaa saasaanu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale Umar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii Bayt al-Maqdis inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho وسو سعدي markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiid iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaynta Umar ka daadagay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisina soo hogaamiyay dhoobadiina iska soo dhex socday Abu Ubayda iyo ciidamadii muslimiinta ragii soo dhaweynaya ka hor yimo Abu Ubayda wuxuu yidhi Umarow ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو إن مقالة دتك دي مدح دينا يكو أركان سيدان أدقو نكن فايداني عقار دوبادا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أرى يقول بصدق أدقى عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة waxaan jeclaan lahaa mid aan adiga ahayn inuu yiraahdo Abu Ubayda adiga waa ka xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kale oo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayda waa ogiyay laakiin wuxuu yara rabay isagoo amiirul mu'miniin ku muuqda amiirul mu'miniin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado لكن عمر وحو كليه وحانو هين إنا كنا أذل قوم داد الدل يسنبانو هين إلهي الدين تنبو نقو عزة يضدنا قدق يبولي مركانو عرب هين أدولك يجي شوقني داد الدل يسنبانو هين شرني لكن إلهي وحو نقو عزة نقو شرفي دين تطن هدانو كرا دي نبولي شرفت ميلان دين تيضا هين إلهي وانا ذلينيا إلهي الدين بو نقو شرفي waxaan diinahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaan uga dan leenahay qofku mu'taz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidbidkana adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xajisto ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlaya alayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada la hadlaya waxa la yidhi fastamsik billadhi uuxiya ilayk innaka ala siraatin mustaqiim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي وحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وايو جد صحبات كسوغانتا يبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتا وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هاي أديك يتولكا بابا إلهي لي إلهينا ويدين دونا مركا وحو ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a waxa leena shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inuu kaga baxno wixii saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu mu'taz ku ahaano dad ku faanaya waan qarsanaynin diinta tar inaynu noqono